بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا magacayga Cabdirasaaq waxaan ka hadlaynaa waxyaalihii la xiriiray macaamiisha iyo muhiimadda ay u leeyihiin shirkadda buuggan oo muhiimad weyn u leh sidii macaamiisha loo keergareyn lahaa ama loo ilaalin lahaa muhiimad weyn u leh ayaan insha Allah qayb aan uga hadlaynaa qaybtan waxa waaye sababta macaamiisha loo soo dhaweynayo waa maxay inta badan waxa aragtaan ayadoo la yiraahdo marar badan macaamiisha la soo dhaweeyo ayadoo la yiraahdo ayaad aragtaan marka waa maxay sababta loo soo dhaweynayo macaamiisha ayaa macnaha su'aashaas ayaan isweydiinaynaa waxa waaye dad badan waxa laga yaabaa inay isfahansaneen marar badan oo shirkadaha marka la joogo macaamilka la yiraahdo haye soo dhawow walaal la yiraahdo inay isfahansaneen laakiin muhiimaddu waxa waaye in macaamilka la soo dhaweeyo sababtoo ah lacagta jeebkiisa ku jirto ayaa la rabaa in laga soo baxo muhiimaddu waa taas marka qofka marka la yiraahdo soo dhawow walaal maxaan ka caawinaa seen ugu soo gaartay waa mahadsan tahay soo fadhiiso haye maxaan ka caawinaa marka la yiraahdo qofka macaamilka ah shucuur weyn ayaa ka dagayso oo macnaha muhiimad weyn ayay u tahay asaga waxaan rabnaa muhiimadda ay macaamiishu leedahay ayaan rabnaa marka koowaad macaamil intee la eg ayuu muhiim yahay horta marka koowaad yani intee la eg ayuu muhiim yahay haddii aan isweydiino oo su'aashaas aan isweydiino waxaa laga yaabaa in qofkiin isdhaho boqolkiiba wax ka yar boqol laakiin sidaas ma ahan haddii ay jirto boqolkiiba inta ugu badan la yaqaano ayay noqon lahayd macnaha waxa waaye macaamilka boqolkiiba intee ayuu muhiim u yahay shirkadda waxaa la dhihi karaa boqolkiiba inta ugu badan 200 ma la dhihi karaa boqolkiiba 100 ma dhahaynaa boqolkiiba 500 ma dhahaynaa macnaha waxa waaye macaamilku wax kasta oo shirkadda ka soo hara wuu ka muhiimsan yahay sida guryaha baabuurta shirkadu leedahay shaqaalaha maamulka milkiilayaasha inta waa ka muhiimsan yahay sababtoo ah shirkadan waxa ay ku dhaqaaqayso oo dhaqaaqeedu u yahay waa macaamilka ayada waay marka macquul ma ahan in yani muhiimadda macaamilka la fahmi waayo marka soo dhow la dhahayo sababtaas waaye sababta wax waaye haddii macaamilkaas la waayo ma jirto wax dhaqdhaqaaq samey kara ma jiraan okay haddii macaamil la waayo ganacsi ma jiri karaa ayaa ka fiican haddii macaamil la waayo ganacsi ma jiri karaa horta yani su'aashaas in badan oo dadka marka la weydiiyo waxay ku jawaabaan ha laakiin waa dad aan fahansaneyn oo wax badan ay iskaga qaldan yihiin haddii macaamil la waayo ganacsi ma jiri karo waa istaagayaa ganacsigu haddii macaamil la waayo waxaa shaki ku jira in haddii macaamil la waayo uusan jiraynin wax la yiraahdo ganacsi waana qaacidada caan ah oo meel kasta ee adduunka laga joogo waa laga siman yahay ama gaal ahow ama muslim ahow ama cadaan ahow ama jilac ahow ama jirar ahow yani dhammaan waxa waaye adduunka oo dhan waa wax la isku raacsan yahay qaacido rasmi waaye hal ku dar waa labo sida qaacido u tahay ayay tan qaacido u tahay haddii aan ganacsi jirin haddii aan aysan jirin macaamil shirkadda ku soo galaa ganacsigaas ma jiraayo mushaar la qaadamaayo cid kale la siimaayo wax shaqeeyahay ma jiraan marka waaye intaas aan kala yahay waxaan kaloo rabaa baaritaan la sameeyay adduunka oo dhan waxa la isla qaatay in muhiimadda macaamiishu ay tahay waxa ugu muhiimsan ee tiirka ganacsiga ugu muhiimsan yani waxa la isku raacay inay yihiin macaamiisha ay yihiin la isku raacay tiirka ganacsiga inay yihiin ayaa la isku raacay macaamilku inuu yahay tiirka ganacsiga oo wax kastana oo ka muhiimsan yahay
baaritaanka marka oo la sameeyay adduunka oo dhan waxa la isku raacay tiirka ugu muhiimsan ganacsiga yani inay tahay macaamiil inay tahay ayaa la isku raacay tiirka ugu muhiimsan ganacsiga sida shaqaalaha hantida iyo macaamilka intaba macaamilku wuxuu ka yahay ganacsiga tiirka ugu asaasisan oo ugu weyn ayay ka tahay waxa la isku raacay hadii macaamil hesho ganacsiga isla markaa ay noqon doonaan kuwa daacad u ah yani meeshan waxa waaye yani hadii aad macaamil hesho oo macaamilkaas daacad ku noqdo daacad macna daacad ku noqdo yani daacad waxa laga wadaa macaamil ku jecel oo macnaha adeegaaga soo doonanayo markaas ama mar walba oo soo laabto mujida soo laabashadaas muhiim waa hadii macaamilku uu soo laabto oo daacad inta ku noqdo badeecadaada marka koowaad soo dhaweyso oo qanciso mar labaad oo ku soo laabto oo badeecadaada oo qaato ya inay keento waxa yaraanayo waxa ka yaraanayo qarashaadkii aad macaamilku abuur lahayd sida ina marketing samayso ina magaalada soo wareegto ina bahalkii ahay boorar samayso ina bahalkii ahay soo يعني meelaha dhismooyinka laga sameeyo ama meelaha badeecadaada ay ku bixi karto aad waxa soo dhan way ka yaraanaysaa macnaha qarasha ilaa waxaas kaaga bixi lahaa moogtaa saaka hadaa baxdo madaxtooyada arabto inaad soo booqato badeecadaada saa u gado qarasha kaaga baxay marka laakiin hadii la barto alaabtaada qarashkii aad alaabtaas ku bari lahayd dadka ayaa ka yaraanaya sababtoo macaamiil daacada oo ku soo laabanaya haysataa maxaa ka yaraanaya qarashkii waxa kale jira markii qarashkaas oo ka yaraado waxa bilaabanayo macaasha bilaabanayo hadii qarashkan marba oo ka yaraado marba hadii oo ka yaraado macaasha bilaabanayo sababtoo kunkii bixi lahaa jeebka oo ku hara ila macaamilka daacada ku noqdo markii kuwa isfaan u qiimeysay daacada ku noqday oo ku soo laabtay marka qarashaadkii aad ku bixi lahayd oo ka yaraanaya hadda shirkadaha adduunka waxa laga yaabaa marka koowaad ama Soomaalida marka koowaad soo galaan suuqa inay muddo badan xayisiin wadaan laakiin marka dambe xayisiinta idaacadaha way soo jaraan waxay leeyihiin halka idaacad oo magaceena inuu jiro kaliya laga ogaado ay isku soo reebaan sababtoo ah waa la bartay markaas ay wanaagsanaato mushaarka iyo xuquuqda shaqaalahana way wanaagsanaanayaan xuquuqda shaqaalaha hadii macaamilku marka uu soo laabto oo shirkadu macaash hesho waxa meesha ka dhalanaya xuquuqdii shaqaalaha ayadana inay fiicnaato oo aad iyo aad loo qadariyo okay waa mahadsantihiin intaasaan kusoo gabagabeynaa maanta nagala soo xiriir lambarkaas hadii u baahataan buugan iyo waxyaalahaas iyo waxyaalihi kale oo management iyo waxyaalahaas la xiriirada u baahataan nagala soo xiriira. Assalaamu calaykum.